caadi ma ahan aan ku idhaahday in da'daada lagu murmo anaaba ku tusi doonee alaabtan soo isticmaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu my family wadajir group isku soo noqosho wanaagsan meel walbaad joogtiin aad ayaan idiin salaamayaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii rabadaankii dhammaystay oo cibaadadooda laga aqbalay inuu ilaahay naga dhigo. ciidana ilaahay waxaan ka baryaynaa farxadda aan ku wada ciidnay mid la mid ah inuu ilaahay nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkeeda adigoo caafimaad qaba. haddaad fiirsanaysa fiidiyogan farxad ayaan kuu rajaynayaa. haddii aad xanuunsan tahayna alla ayaan caafimaad kaaga baryay. waxaa dib noogu bilowday qurxinteenii gudaha iyo bannaankaba. waa muhiim inaad jirkaaga aad ka shaqaysid, ha iloobin, waayo aniga waxaan jeclahay in aan idiin noqdo dhiirigelin. halkaas waxaan idinka muuqdo waa bataatiska sidaan wada ognahay fitamiin c ayaa ku jiro. fitamiin c-gana waxaa waaye wejiga wuu caddeeyaa wuuna jiidaa, oo macnihii waxaan ka wadaa wejigaaga wuu yareynayaa oo sidan ayaad quruxu noqonaysaa qof da'yar. runtiina cuntooyinka waxaa ku jiro waxyaalo badan oo healthy ah oo adiga faa'iido ku ah, hadday tahay in aad gudaha ka cuntid iyo hadday tahay in aad bannaanka ka marsatid. haddaba bataatiska qaybta uu u taagan yahay oo qurxinta ah waxay ka mid tahay fitamiinada ku jiro oo ka mid ah fitamiin c. fitamiin c-gana wejiga waxaa waaye dhalaal iyo milic ayuu u sameeyaa. maskigan waa maski dabiici ah oo aad ugu heli doontid qaabkan u sameynayana fiidiyogayga ayaad kaga boganaysaa. sidoo kale qurxinteena waxaa ka mid ah oo galabta aanan ka maqneen waa bariiskana waxaa waaye cuntada aan cunno ayuu ka mid yahay. bariiska waxaa ku jirto maado dabiiciya oo jirka qurxiso. waxaa kale oo ku jiro fitamiin e oo jirka qurux kaaga dhigayo. hadda waxaan sameynayaa marka bariiska sidiisa asoo qaleel u ah ayaan shiidayaa, wax biya kuma daraayo. sidaa haddaba aragtiin bariiska inta aad rabtid ayaa samaysan kartaa, ma kaa halaabayo, marna kaama uraayo. waa wax qaleel ah, jikadaada ayaa dhinac ka dhiganaysaa, dhala a ku shubanee ama weelkaad haysatid. waxyaalaha dabiiciga markaad wejigaaga u marsanaysid ayaad qaando yar uga darsan kartaa. sidaas ayuu kugu fiican yahay markaa wax badan shiidatid, waxaa waaye waqti ayuu kuu oolayaa. hadda waxaan shiidayaa sidaa aragtiin waa bariiski oo sidiisa oo qaleel ah. waxaanoo dhanna waxaan u shiidayaa, qaar ayaan waxaan rabaa meel inaan ka dhigo, qaarna aan isticmaalo. hadda waan shiiday oo bariiskeeni sidan ayuu noogu soo shiidmay. makiinadaanoo kale haddaad haysatid waa ku shiidan kartaa, ama makiinadaha yaryarka isagana waxaa waaye waxay ku fiican yihiin wax walbo aad ku shiidatid budo ayay kaaga dhigayaan. hadda sidaa aragtiin waxaa waaye bataatiskii ayaan ku ridayaa oo waxaa marka hore u horumariyey bariiska waxaa waaye qaybta qaleelka u taagan yahay. marka waxaan diidayay marka hore inaan makiinadeeda aan qoyaan ka dhigo oo wax qoyan aan ku shiido, kadibna aan wax qaleel ku shiido. marka bariiskan iska shiitay maadaama aan rabo bariiska inuu asagana iska yaalo. sidaas darteeda bariiskii iyo bataatiskiina waxaa waaye hal meel ayay u wada socdaan oo waan isku darayaa. sidan ayuu noogu soo baxay bariiskeenii. inta aan rabo oo wejiga aan ka marsanayo ayaan rabaa inaan ku darsado. qaandadaas yarka ayaan ku qiyaasanayaa oo 2 ah, waa ila soconaysiin. 3 sidoo kale waa ku darayaa. adiga inta aad rabtid ayaad ku darsan kartaa. alaabtan waxaa waaye talaajaday kuu ooleysaa, talaajadaada gashanaysaan ka wadaa, waxba kaamaba halaabayso. isbuuc dhan waxaan ku idhaahday everyday waxaa waaye maalin walba waad marsanaysaa. wejigaaga maski oo aad u qurxinaya waaye. hadda waxaan soo gaaray qaybtii qoyaanka. caano ayaan qoyaan uga dhigayaa. caanaha haysatid ayaad ku qoysan kartaa. meeshan waxaan ku idhaahday nafaqo la yaqaano ayaa kasoo baxday. qaybti kale waxay noqonaysaa liin dhanaan. liin dhanaanta hadday ku dhibayso waxaa bedelkeeda aa ugu bedelan kartaa liin macaanta. liin dhanaanta waxaa waaye aniga ma i dhibayso oo xasaasiye kuma qabo, laakiin adiga hadday ku dhibayso liin dhanaanta waa ka daysan kartaa, bedelkeeda liin macaana gashanaysaa. liin dhanaanta waxaa waaye waxay u taagan tahay madmadow hadduu wejigaaga leeyahay, dhibcaha madow oo kale sida indhaha hoostooda haddaad ka madowdahay, waxaasoo dhan liin dhanaanta way kaa qaadaysaa oo wejigaaga dheehi ka maqnaa ayuu dib kugu soo celinayaa. intaas ayaan isku shiidayaa. alaabtan waxaan rabnaa kareem dabiiciya oo innaba aan caadi ahayn inay noogu soo baxdo. wax laguu soo sameeyo waxaa kaaga fiican waxaa hubtid oo gurigaaga aad ku samaysatid. mar walbana ku talagal niyadaada geli in aad waxaa marsanaysid aad ku qurux badnaanaysid. shayga haddaad gelshatid waad ku fiicnaanaysaa oo caafimaad ahaan aad u cuntid waa ku fiicnaanay dabcan. haddii aad shaygan istiraadi marso jirkaagana quruxuu ka qaadayaa, dabcan wuu ka qaadayaa. kulli shay calaa niya waa.
sidan ayuu noogu soo dhammaaday kareemkii aan maanta guriga ku samaysanay ugu talagalnay hal wiig inaan wejigaaga marisid oo qurux kaaga dhigo wejigaaga dheehi kaa maqnaana uu dib kugu soo celiyo wixii aad araggiisa aragtaa uuntiisa ku deeqdaa ma maqli jirtay hadda waaba kanaaba araggiisa ayaan idin deeqay aniga siduu ii deeqay ayuu idinkana idin deeqayaa dabcan kommentigiina ayaan ka arkayaa kareemkan waxaan ku idhaahday hal wiig wejigaaga ayaad marsanaysaa qurux innaba caadi ma ahan wejigaaga xataa haddii uu lahaayaan ku idhaahday wax jeexjeexa ama dee aad ku aragtay inuu wejigaaga jacdad yahay wejigaaga dhan dheehiisa ayuu kuu soo celinayaa lagama sheekeyn karo fitamiin c ayaa ku jiro fitamiin e ayaa ku jiro oo bariiska ayaa ka mid ah alaabtan waxaan ku idhaahday markaad soo marsatid feedbackiisa ayaan kaa sugayaa haddii aad tahay dadka qalalanna waxaad ku darsanaysaa saliid oo waxawaani dadka waxaan ka mid ahay wejiga qalalan hadda kan aa ujeediin waa saliid waa linseed ama haddii aad taqaaniin flaxseed oo saliid laga sameeyey waaye waan soo gaday dukaamada ayaa lagu gadaa waa mirahaas oo saliid laga sameeyey mirahaas waxaa fitamiino badan ayaa ku jiro saliiddana wejigaaga hadduu ka maqan yahay mar walba saliid waa u baahan tahay waayo wejigaaga hadduu qalalan yahay da'da way kuu soo degdegaysaa jactaduu kaa noqonayaa wejigaaga dheexa dhanna wuu kaa tegayaa waxaan kaloo meesha ka maqneen fitamiin a sidaa haddaba aragtiin horena waxaa waaye fitamiinaad badan ayaa meesha ugu jiray sida bataatiskoo kale fitamiin c ayuu u taagan yahay bariiska fitamiin e ayuu u taagan yahay kanna waa lagu daray meeshaas maxaa ka soo baxaayo bababababa innaba caadi ma ahanaan ku idhaahday in da'daada lagu murmo anaaba ku tusi doonee alaabtan soo isticmaal aniga waxaan ka mid ahay dadka wejiga qalalan asxaabey marka haddii aad wejigaaga aad tahay dadka qalalan linseedkan ayaad u baahan tahay flaxseed waxaa waaye oo saliid laga sameeyey waaye haddii aan idiin jilciyana af soomaali ahaanna waa qoondar oo saliid laga sameeyey markasta waxaan kula talin lahaa masaajka wejigana badso markaad masaajka wejiga samaynaysidna saliid ayaa la marsadaa waayo saliidda waxay kaa caawinaysaa masaajka wejiga inuu qurux kaaga dhigo waxaa noo soo dhammaaday kareemkii aan samaynay halgan kadib waa lagu guulaystaan ku iri asxaabay ka sheekeeya dhaladan see u socoto talaajaday gelaysa ayaan ku iri maalin kasta intaa uga baahan tahay ayaa ka qaadanaysaa oo qaandayar ah midii labaad waxaad ku dadaashaa wejigaaga mar walbo aad isticmaalaysid wax aad marinaysid ama kareem dabiiciya ama kareemooyinka caadiga wejigaaga biyo mari intaada wax marsan kadib markaa wejigaaga qoysid ayaad wax marsan kartaa taasna waxaa waaye talada aan rabo inaan idinka dardaarmo hadda waxaa waaye dhaladaas ayuu alaabti noogu jiraa talaajadaasaa la iska dhex dhigayaa asxaabay ka sheekeeya araggiisa arkaa uuntiisa ku deeqda aa ka dhacdaan ku iri alaabtaa maalintaas soo isticmaashid insha allah feedbackgaaga adaankaa sugayaa hadda maxaan sugayaa marba haddee alaabtii aan samaystay inaan tijaabiyo waa muhiim agtiinana aan ku marsado sida loo marsanayana hadda idinkama sheekeyn karo waxaa waaye wejigaaga ayaad biyo kusoo dhaqaysaa oo soo nadiifinaysaa biyihii wejigaaga ka da'ayo oo wejigaaga qoyan ayaad waxaa soo qaadaysaa burushka waa ballanteena ani aad ayaan u jeclahay burushka inaan wejiga ku marsado waayo gacanta waxaa way adag tahay indhaha hoostoodoo kale way jilicsan yihiin burushkaaga marka waa deeqayaa burushka waxaa waaye si raaxa ayaad ugu marin kartaa laakiin gacantaada way adag tahay markaad istiraada mari indhaha hoostooda way jilicsan yihiin markastaba iska ilaali sida haddaba aragteen saliiddii ayaan soo qaatay aniga dadka qalalan ayaan ku jiraa yaa tiimka qalalan haddaad tihiin farta soo taaga waxaa waaye isku mid anaani hadda kabacdi qaybta waxaa waa qoyaanka ah idiin soo horumarinaya tiimka wejiga qalalan haddaad tahay alaabtan way ku anficaysaa tiimka qoyan oo saliidda leh haddaad tahayna saliiddaas bes ayaa ka daynaysaa waxaa sameynaya intii kale aan soo qasay ayaad marsanaysaa oo asagaaba fitamiino badan ku jiraa dheexaagii wejigaaga soo celi rabadaankii aad waxaan ku idhahday jikada maalin walba aad taagneed hooyoy waan ku jeclahay dib u soo celi quruxdaada waxay ka mid tahay noloshaada barkeeda isku dadaal alaabtii aan sameeyey sidan ayuu nagu soo baxay ugu dambeyn haddii aad ka hesho fiideogeyga fadlan like-ta waa ii muhiim ii saar anigana waxay ii tahay dhiirigelin kommentiga sidoo kale waxaan idinka tegayaa fiideo soo socdo oo asagana midkan mid ka daran ayuu noqon doonaa insha allah mar walba waxaa waaye adinka ayaan idiin taaganahay
walaalnima iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican weliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnima buuxda weeye ifka lagu yahay walaal ifka la isweheshadaa ifka wax la isugu taraa